وحناهاي وهديقة دوسيدا دورت الورارو هسها وقاقا وحلقو ولوسا مقعب هيو أدنيو أفدتنا أنباقات كجيدا سيدورت الورارو هسها وقاقا وحلقو ولوسا مقعب هيو أدنيو أفدتنا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبر أميرسو آلا بنيسو قد بعشرة دكسية سر بيولوجي كيمستري فيزيكس إن شاء الله عشر كان نكسو قد بنا فصل كطبعين لبعض أما جريد 12 أما فانفور أرضوسي وتغانو شابتر كيسا سدحات شابتر كيسا كوادي شابتر كيسا لبعض إن شاء الله كل بهرد عيام نسو قد بني وأنا صار ما يستري دوناي هافيرا كلمة إن شاء الله كان ما أنتو عم نسو قد بدونا ما دام أرض بدنا نقص عطستي نقيبها هراء introduction كأه maadaama chapter uu yahay aad iyo aad muhiim u ah genetics-ka dhaxaltooyada aan ka hadli doono waxaan sameynaynaa inaan casharadiisa macnaha kala qeybino oo sidii isku waafaqsiin isku raacin insha Allah waxaan qaadan doonaa maanta introduction of genetics heredity-ga ama hidaha waxa uu naqaano hordhicis waxaan leenahay genetics-ka waxaan qaadanaynaa oo kaliya hordhicis haduu Ilaahay idmo oo inaan barano genetics-ka hidaha iyo qaabka uu shaqeeyo waxyaabahaas iyo hordhacyadiisa casharadii hore aan soo qaadanana qaar oo xiriir la yeelana genetics-ka markaan ka hadlayno waa waxa noo sheega dhaxaltooy markaan ka hadlayno ma ahantii hantida la iska dhaxlaayay laba dhaxaltooyaa jirta midna hantida la iska dhaxlaa midna waxa la iska dhaxlaa astaan ama macnaha sifa ayaa la iska dhaxlaa wax loo yaqaan midda hantida la iska dhaxlaay marka hadli doono taas waxa weeye waxyaabo caadiga daily life-ka ama nolosha caadiga ah waxaan ka hadli doonaa science mid ah oo loo yaqaano in la iska dhaxlo astaan ama sifo in la iska dhaxlo macnaha sifadaasoo noqon karta ama color ama dheer ama something like that wax kasta duu lahayd haddaba marka adaan casharkeena sii guda galno introductionkiisa waxaan ku qaadan doonaa the genetics. The most striking feature about the living world is a great variation observed among the organisms. waxyaabaha muuqa ugu wacan dunida aadka cajiibka waa waxyaabaha kala duwanaanshaha variationka ayaan ku arki doonaa oo laba aan qeybi doonaa duu Ilaahay idmo in variation laga arko haddaad 5 qof fiiriso ama dad isla dhalso fiiriso ama dad isla dhalan fiiriso ama dad hal wadan hal qaarad ka yimid aad fiiriso sababtoo waxa ku arkayso ku muuqdo waa variation ama kala duwanaansho maxaa dhaliyay maxaa keenay kala duwanaanshahaas عشركنا دول هاي وحقوق سياطة even organisms which are closely related are vary حيوانات كأد كسكولو عد نقول هاد كويس لا شتي كويس لا أنت بدأ حالها vary وكل دوين وحلو يقان أساسك أو حد يقولي مقال كودي شبكة يفهم كقابكو وكاين ومقال كودي يو قاب كودي يو حد يقول مساس كودي بيكل دوين هذا بقى in the survey of living organisms in book 3 أي 10 دقائق صبرنا لكن variability معناها was used to classify organisms into the different taxonomic groups book 3 جوا بوجا طبنات كوكودا دول هاي إنه صار عفتي وحق صبرت وحلو يقانو taxonomy جروبينتس كوحينتس كيكلو مسك وحياة سيد كصبرت هل كسباب عرقنا variability مع كلدونا شا حيوانات كو إمانا مركا عبلا عبلينيني هدول هاي chapter كان بوجا وحنكو بردنا مركا the study of this variation كلدونا شا أصارت variability جاس أتصار عرقتي حيوانات كلدوين قار بري كنولين قار معنا ديجو ديرين قار ديجو قوية قار دفلين قار وسدفلين وحياة something like that قار وكوس عدن قار المنور لان قار معنا وكنا لان قار معنا المهودي أي كاديان something قار حمارتان قار بيها كنولين قار معنا دور كنولين قار
waxyaabahaas aan soo baranay kusoo baranay buugga labaad ama saddexaad oo buuggaan leeyahay laakiin buugga labaad ee neenka iyo tobanaadka waa buugga tobanaad aan kusoo baranay ama form 2 aan kusoo baranay kala duwanaanshihiisa oo si caadiyaba asagoo dhammaystiran aan kusoo geliyo YouTube-ka haduu ilahay idmo videoyaashiisa shanta chapter ee buuggaas ka kooban aad ka helayso waxaan leenahay wuxuuna tusahay kala duwanaanshahaas waxaan ku leenahay barashada kala duwanaanshahaas iyo qaabka ay u kala dhaxlaan xayawaanaadka waa line biology kamid oo laguna magacaabo geneticska waxaan leenahay the study of this variation kala duwanaanshaha xayawaanaadku waa ay u kala duwanaadeen iyo how they are inherited sideebay u kala qaateen sifooyinka u kala dhaxleen is a branch of biology called genetics waa line biology kamid ah laguna magacaabo geneticska ayaa lagu magacaabo genetics waxaa iskaga soo koobi kartaa is the study of heredity waa barashada dhaxaltooyadaas maxaa waaye waa kala gudubka sifooyin in waaridkii kasoo gudbaan ayagoo aadayaan dhallaanka ayaa la yirahdaa sifada wax kasta noqon kartaa midab ay noqon kartaa dhir ay noqon kartaa cudurada qaar bay noqon kartaa sida macnaha gadaal ku arki doonaba cuduradan oo dhigbaxay waxyaaba something like that okay haddaan inta introductionka isla fahanay kolba duulahayd ma umaleynaya waxaan leenahay cilmigan geneticska ah waxa uu isku dayaa ama scientists isku dayaan inay sharaxaad ka bixiyaan sababta nooluhu u kala duwan yahay midba midka kale iyo waqti isku mid ah sababta similarities ka keenaya ayaga noolaha qaarna oo waqti isku mid ah way kala duwan yihiin noolaha qaarna waa isku mid maxaa dhaliyay why su-aashaas ayaa macnaha raadraac laga dhigaya in science of genetics and termites science-ka cilmiga science-ka wuxuu isku dayayaa explain inuu sharax waayo organisms differ maxay xayawaanaadku u kala duwan yihiin from one another midba mid kale muxuu uga duwan yahay at the same time isla taasoo kalena show similarities with the same species muxuu species waa jinsiga markaa kaga dhaw miska tirinayn midka u hooseeya lahaa jiniska si hooseeya muxuu ka samaysan yahay waxa loo yaqaano ama oo u samaysan yahay isku mid maxay ku kala duwan yihiin maxay isku mid yihiin okay haddaba anagoo raacayno qaabkaas ayaa waxaan ka bixi doonaa introduction hadduu ilahay waxaan leenahay when organisms reproduce the offspring resemble the parental forms markii dhalaankii markii noolihii tarmo markii noolaha uu tarmo wuxuu dhalayaa dhalaankaas oo macnaha wakiil ka ah ama sifo waaridkiis qaab uu wata taasna waa natiijada ka dhalanaysa dhaxaltooyada dabeecadaha dhaxaltooyada ee waaridka laga dhaxlo haddaba si cayiman haddaan ku sheegno si kastaba ha noqotee dhalaanku wuxuu ku tusinayaa farqi yar oo parent tusaaladaa soo qaadana bili-aadanka numbers hal qoys ka kooban ayaa ku kala duwanaa kara muuqaalka wejigooda qaabka shape-ka oo muuqooda ah sanka qaabka dharkiisu ah maqaarka kalarkiisa iyo muuqaalo kaloo badan ku kala duwanaa kara taasna waxaa ugu wacan kala duwanaanshaha dhaxaltooyada factor dhaxaltooyo oo macnaha ay wada hanan karaan ama wada heli karaan waaridka sida daraadeed dhaxaltooyadaas iyo qodobadaas keenaya way ku kala duwanaa karaan mas-uuliyadda waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo kala duwanaanshaha nooluhu uu sameynayo haddaba deegaanka sidoo kale saameynaya wuxuu ku leeyahay dabeecadaha nooluhu uu ka dhaxlaayo oo kala qaadana okay waxaan leenahay when organisms reproduce nooluhu markuu tarmo the offspring resemble the parental form wuxuu qaadanayaa sifadaasoo ka mid noqonaysa sifada waaridka u taagan and this is the result tana waa natiijada ka dhalata inheritance of characteristics from the parents in laga dhaxlo astaamaha qaar waaridka macnaha ama astaan waaridka laga dhaxlo in certain cases xaaladaha qaar ama however si kastaba noqotay the offspring may show a slight difference from their parents waxaad ku arki kartaa meelaha qaar inuu ka duwan yahay waaridkii dhalo cunug uusan ka duwan yahay markaan waxaa u tiirinaynaa astaamaha waaridkii hore ee waaridkan dhalay inuu raaco tusaale haddaa soo qaadano for example among human being bili-aadanka aan ka hadli doonay wax badan aan ka sheekey doono geneticskiisa tusaale soo qaadano waxaad arkaysaa members of the same family may differ in the appearance of the face shape of the nose and the skin color and other features waxaad arki doontaa the members of the same family xibno qoys isku mid ah ka kooban may differ waxay ku kala duwanaa karaan appearance of the face wejigooda muuquu yahay okay shape of the nose sankooda mid madheer yahay mid duuban yahay mid ballaaran yahay
skin color maqaarkooda macnaha ku midabka uu la qaadanayo other feature muuqaalo badan oo kala duwan. This is due to the variety of hereditary factors. taasna waxaa keenaya kala duwanaanshaha isirka dhaxaltooyada that each acquires kaasoo qof kasta ama mid kasta uu hanan karo from the parents waalidka harana. The inheritance of these factors is zerada dhaxaltooyada in many different combinations waxay ka kooban waxyaabo badan oo isku biirsaday is responsible for the variation kuwaasoo mas-uuliyad ka ah kala duwanaanshaha within species jinsi inuu kala duwanaa. The environment also affect sidoo kale deegaanka ayaa saameyn ku leh characteristics ama astaanta sifada ay cadeynayso noolahan inuu sifadu la soo bixi doono deegaanka uu ku nool yahay ku kobco ku barbaaray ayaa ayadan waxay noqon doontaa mid kamid ah ayay kamid noqon doontaa. waxaa loo yaqaan inta in concept good aan uga baxno maxaa inta ku baranay waska introduction oo kaliya inta waxaan ku baran waxa loo yaqaano inay jiraan nooluhu inuu kala duwanaan karo kala duwanaanshahaasna u feerinayno noolayaasha waxyaabaha keeni kara muuqaalkooda. kala duwanaanshahaas noolaha midba midka kale waxay ku xiran yihiin xadiga muuqaalka iyo qaabkooda. waxaa loo yaqaano boogsa 3 ama buuga 10aad waxaa kusoo baratay waxyaabaha taxonomiga 5 group ee la ableynaya ama kooxood 5 groups ayaan kusoo baran. haddaba sidaasi ka duwan kala duwanaanshaha kaas ma baran doono boqortooyinka maanta waxaan baran doonaa sifooyinka kala dhaxalo lagu magacaabo cilmi lagu magacaabo science oo gaar ahaan maada branch of biology kamid oo genetics lagu magacaabo dhaxaltooyada ama hidaha lagu magacaabo Soomaali. waxaan leenahay science-kan geneticska wuxuu isku dayaa inuu sharaxaad ka bixiyo noolaha sababtay u kala duwanaayaan iyo sababtay isku mid ka noqonayaan. waxaa markii noola tarmo waxaad arkaysaa dhallaanka inuu waalidkiis macnaha sifo ka qaadanayo taasna natiijada ay ka dhalanayso dabeecada waalidka laga dhaxlaabo sifooyinka. mararka qaar waxaad arkaysaa inuu waalidkii ka duwan yahay dhallaankiisii. tusaale haddaan kasoo qaadano bini-aadanka hal qoys kamid ah waxaad arki doontaa muuqaalka wejigooda sanka muuqaalkiisa iyo macnaha maqaarka in ka duwan iyo qodobo kale. waxaad arki kartaa faktorada ama isirada macnaha dhaxaltooyada keeni kara inay macnaha laga hanan karo waalidka laakiinse ay ku kala duwanaan karaan isiradaasi ay oo isku biira inay mas-uuliyad ka yihiin kala duwanaanshaha noolaha. isiradaas waxaa soo raaci kara environment ayaa soo raaci kara maadaama wax sameeya ay yihiin variation oo aan dhahnay the variation wax sameynaa maxaa ku sheegi karnaa fikradda kala duwanaanshaha. Variation refers to the observable difference among living organisms. wax kale ma ahan haddaa kala duwanaansho maqasho waa dabeecado aada arki karto ama kala duwanaansho isha ku qaban karto oo noolaha dhexdiisa. kala duwanaanshahaas qaar kamid a bini-aadanka waxaa ku tusinayaa sida tiro badan qaar kamid waxaad ku arkaysaa carabka habka dhirirka ama carabka rollingka carabka markaad isku laalaabto qaab qof isku laalaabi karo qof isku fingerprintska oo faraha macnaha markay la fiirinayo suulka laiska qaadayo farta laiska qaadayo dhirirka nooca sanka dhegaha loobkooda oo noqonayo kuwa fidsan iyo kuwa isku dhegan saksiga oo jinsiga ah wuxuu noqon karaa dhiigooda nooc waxaa saameyn karaa kala duwanaansho badan maqaarka midabkiisa culeyskaada balanskana waxay saameyn kartaa waxaa loo yaqaano waxyaabaha la arki karo sida dhirirka caleemaha internodiska udhexeeya waxaa loo yaqaano caleemaha seeska oo fruit ka soo baxa ee kala duwanaanshahaas dhammaan waxaa u kala qeybi karnaa 2 nooc oo loo yaqaano mid soconaya iyo mid aan soconayn. mid discontinuous oo dabar go-ayo ama stopid ah iyo continuous variation u kala qaadana mid kastana hoos ku sharxi doono. haddaan inta soo fiirino waxaan leenahay variationka kala duwanaanshaha refers waxaan ku sheegnaa to observable differences kala duwanaansho among living organism noolayaasha ay kala duwanaadaan ayaan ku sheegi karnaa some of the variationskaas. marka kala duwanaanshahaas qaar badan oo kamid show human being bini-aadanka show waxaa kutusaya tongue rolling carabka habka ulaalaamo fingerprints suulka la iska qaado ama faraha macnaha marka la fiiriyo higa oo dhirirka ah type of ear lobiska dhagaha macnaha carjowdooda qaabkay tahay free inay tahay inay attach yihiin saksiga oo jinsiga ah blood groupka oo dhiiga kooxu yahay 4 group ABC ABO ga ah noocu yahay skin colorka maqaarka weightka culeyska dhirta markaan u fiirino waxaa lena kala duwanaanshahaas observed the length of leaves ka ku aragtaa caleemaha
waxaa ku arki doontaa internodiska waxaa loo yaqaano oo caleemaha dhexdooda ama meelaha yarka ee dhexdooda ses fruit kasoo baxayo. Variationkas waxaa category u sameyn karnaa ama u kala qeybi karnaa labo discontinuous iyo continuous variation ayaan kala dheheen haduu ilahay mid kastana waxaan ku arki doonaa hoos. haddaan barano waxa loo yaqaano boog sida u qoraayo waxa laga discontinuous variationka aan aragno waxaan leenahay in discontinuous variation kala duwanaanshahan macnaha loo yaqaano aan sii soconaynin waxaan leedahay either tango roller or roller waxaa noqon karaa mid carab laaban ama mid carab laaban within the type of the variation oo nooc kala duwanaansho kaasoo qeexayo group koox ama individuals oo koox ah oo macnaha isa ka dhexaynin wax macnaha intermediate form ah baana wax dhexdhexaada ama sifo u dhexeysa aysan jirin. Other examples hadda soo qaadano oo humanka sexiga kamid jinsiga where individual laba midkood noqon karaa male oo female noqon karaa. blood groupka kamida nadan discontinuous kasii qaadano blood groupka wuxuu noqon karaa example of discontinuous variation noqona wuxuu noqon karaa inuu hal type of blood noqdo only belong to the one type of group macnaha ma qofka wuu isbedela mala dhahay variationka A plus oo aha A plus kiisiyo wuxuu isku bedel B plus ma laha inuu noqdo B inuu noqdo A B O inuu noqdo. Some people have free elope while others are attached ayadana waa kasa dhigta macnaha way foqdo wuu isbedel ma laha qaabka dhigtana discontinuous oo kamid ah haduu ilaahay. Similarly, the presence of long hair in the nose on the ear being also discontinuous variation. Sanka oo tin kasoo timaha dhaadheer kasoo baxaan ama dhagaha timo waaweyn aad ku arag mararka qaar waxay kamid tahay tusaale. Discontinuous variation also observed in plants dhirta aan ku arki karna. Example, papaya tree is either male or female. Papaya ninoo noqda ama naag noqda labo noqda ama dhidig noqda sorry characteristics of exhibiting astaamaha macnaha hor istaagaya discontinuous variation ka control by one or two much genes waxaa controlaya ama maamulayo hidiside hal ama laba ah. Physical expression of these genes is not influenced by environmental conditions deegaanka saameyn kuma laha oo meelo ahaa deegaanka saameeyay female oo noqdo ma dhaceyso waxa loo yaqaano discontinuous oo meelkiisu ahaana oo dhiigo aha oo blood group oo ahaa environmentiga saameeyay uu isbedelana ma dhaceyso oo sida u naqaano. inta waxaan ka baranaynaa waxa loo yaqaan discontinuous variation kala duwanaansho aan isbedel lahayn waa aan sii soconaynin. waxaan leenahay wuxuu noqon karaa carabka mid laaban oo carabkiis mid laama ama wuxuu noqon karaa kala duwanaanshahan ku qeexi karnaa group dhaq shakhsiyaad aan wax xiriir macnaha ka dhaxayn oo karba. tusaaladan soo qaadan shakhsiga kamid inuu bilaadig nin lab noqdo ama female blood groupka waa afarta koox ee dhiiga inay mid noqoto dhigta ama kugu meesha ku dhigi karta ama ka fuqsanaa karta waxaan ku arki doontaa inuu ka maqnaa karta maxaadir ku noqon karto wax loo yaqaano. waxaad arki doontaa dhigta macnaha masanka oo kasoo baxaan timo ayaad ku arki kartaa. waxaa ku arki kartaa macnaha dhirta marka xaggeeda feerin geedka babayga oo triga oo xitaa qisooyin badan oo babayga kusoo aruuraa jiro hadduu dhali waayo waxaa lagu mudaahay dheheen waxaa loo yaqaano musbaar hadduu geedka miro dhali waayo musbaara lagu mudaa musbaarkaas markaa ku mudid meel oo ahaa markii hore female oo noqonahay dheheen asoo dhala dad baraaweya aragno maqan laakiin biqudratillahi tacaala inay mucjiso tahay inuu anaa dadka lagu ibtilaynayo maaha laakiin saynis ahaan kolba daliil weli ma u hayno oo ani ahaan daliil ma u hayo saynis ahaan waxaa umalaynaa quraafaad inay tahay laakiin dad badan haddana nagu qanciya ama kugu qancinayaa jira inay macnaha tuso taabsi macnaha kutusaayo. okay waxaa kamid waxaa loo yaqaano qodobo badana characteristics ama sifooyinkaas discontinuouska saamey kara oo kala awaawil kara wayna kala badan yihiin oo macnaha midba qaab ay leedahay waxaynu kumana xirna ama saameyn balaaran kuma laha deegaanka. kaas waa discontinuous two types of variation ka qaybina qaybtiisa koowaad qaybtiisa labaad waxaan leenahay waxaa loo yaqaano insha allah this type of variation exhibited the wide range of difference from the same characteristics from the extreme end of to other. waxaa leenahay nuucan kala duwanaanshaha ah isagana wuxuu soo banbixinayaa farqi ama ranji ama farqi aada u weyn oo u dhexeeya sifo isku mid ah same characteristics from the extreme end of the other midka kale oo sifadii inay isbedelo camal ay noqonaysaa inuu sifo si waarta sii socdo.
for example hadda soo qaadana practical activity-ga 1C aan ku arki doono you realize that with a group of people high ranges from the shortest to tallest with several intermediates dhexdhexaad badan inay leeyihiin when plotting the graph to produce a normal distribution of curve dhirirka kamid wax kale maahan dhirirka dhirirna uu noqon karaa gaabna uu noqon karaa graafka wax kale noo muujinayo inta waxaa noogu qoran number of individual shakhsiyaadka macnaha intay yihiin 50 qof hadeertaan dhirirkooda muxuu noqon doonaa 50 qofood wuxuu noqon doonaa oo loo yaqaan number of individual 140 noqon karaan waa 1 meter 40 macnaha normal distribution okay high in centimeter waa intanaya inta muxuu noqon karaa isagana waxa loo yaqaano this one inta zero noqon karaa ama intana waxa loo yaqaano this one waxa noqon karaa 148 marka inta graafkan soo u kacayo waaye oo kala duwanaansha graafka marka ugu hooseeyo waa number 0 oo bulshada ah marka ugu sareeyana waxa waaye this one numberka wuxuu noo sheegayaa 150 ayuu taagan yahay 450 qof dhirirkooda inuu ahaa doono waxa loo yaqaano 160 ma damoostol 164 so marka qaar waa 180 noqon doonta 190 laakiin gaaray oo dhir kala duwanaashiisa wuxuu ku xiran yahay inuu qofkii ilaa mitir iyo 80 meelaas abrasmado ugu badan inta lagu sharaxi doono waxa u sareeyo malaha waxaan leenahay other variation of continuous variation in human being waxa kamid ah fingerprint types faraha macnaha oo ku kala duwan yihiin dadka way sii soconayaan misbedel skin color pigmentation waxa kamid midabka maqaarka dadka body weight ka kamid culays unaaqusa in plants the length of internodes are kamid number of the branches are kamid laamaha geedalayn leaves ka kamid fruits ka kamid oo geedku lahaan karo waxa kamid noqon kara the seeska fruitka soo baxay ayaa kamid noqon karo waxa kamid noqon karo waxa loo yaqaano fruitka ad majority xilliga qaan gaaraya also continuous variation characteristics that show continuous variation are controlled by many genes key 1 or 2 gene are controlled one like genes badana hidde badana control physical expression of these genes is influenced by interaction by the gene and environmental factor waxa saameyn kara qodobka jinki iyo falgalka dhaxmara ama saameyn ku dhaxmar deegaanka tusaale qof black man wadan laga wada another meel kale la geeyo oo qabow something inuu isbedelayo for example the plant possessing the genetic factor for tallness may fail to grow tall due to unsuitable soil or climate dhirta macnaha hadaan soo qaadano genetic factor for tallness oo dhirka control oo ku fashilmayaan deegaanaadka qaar inay dhir noqdaan oo gaagaab noqon karto taasna waxa ugu caan doona soilka iyo waxa ugu wacnaanayo waxa loo yaqaano iyo climate-ka jooga cimilada meeshaas waxa ugu wacnaa doono waxa loo yaqaan inay ka ahad waxaan sameynaynaa hadduu lahayd markaan ku celiyo continuous variation wax kala maahan waa sifo isbedel uun samey kartaa mararka qaar xaalad ka tegi karta xaalad kale noqon karta meel geed dhirka ah inuu meel kale gaab ku noqdo something like that way hadduu lahayd waxaan sameynaynaa marka aan ku celiyo waxaan leenahay variationkan kala duwanaanshahan kala duwanaanshaha nooc kala duwanaansho ay ku kala duwanaan karaan xayawaanaadka sifooyinka qaarba qaar kale tusaalahan waxaa noogu filan dadkan dhirkooda ay ku kala duwan yihiin qofba nooco rabo u noqon karaa means dhirka waxaa kaloo nooga mid ah kala duwanaanshahan fingerprints qof fartiisa qofku far malahan oo wax iska macna taagan si soconay skin color-ka kamid ah oo pigmentation-ka culayska marna qofkana ku saameeyo marna geedaha marka soo aadnaa laamaha nabradooda caleemaha miraha geedkaas qaangaarnimada geedkaas waxyaabo soo dhan kamid waxyaabo waxa saameeya marka hal qodobo badan mani genes saameeyo oo hidayaal badan hidayaasha xiriir waxa la sameyn karaan deegaanka ayay kaasha karaan ka bacdina soo bedeli karaan okay inta waxaan ku baranaynaa variation maxaa sababa variation oo soo kala qaybinay loo kala qaadno continuous iyo discontinuous variation oo kala soo qaadnay laakiin maxaa cause kara maxaa sababi kara factorka darada sababi kara maxay yihiin kala duwanaanshahan inuu imaado oo kala duwanaanshahan oo dhasho waxaa keeni kara
ayuu kala duwan yahay haduu lahayd waxyaaba keeni kara ko gamete formation number 1 waxaa keeni kara gamete formationka marka leenahay waa taqaanaa gamete male gamete and female gamete markay kulmaan zygote isku bedelaan halka ay keenaan waxaa leenahay gamete formation to process contribute to variation gamete formationka marka leenahay sameysanka gameteka aabihii iyo hooyadii kala imaanaya male iyo female kala imaanaya waxaa saameyn ku lahaan kara labo ayaa usilada independent assortment wax la dhaho oo madax banaan waxaa during metaphase mitotic division kalba soo gelina umaleyna chapter video kan ka horeeyo oo reproductionka hordhiciisa ku sharaxan soo geliya metaphase iyo anaphase doodaheedu waxaa leenahay metaphase-ka waa xaalada waji dhexe ahayd mitotic divisionka sida chapter book 3 waa ku sheegay laakiin chapter 1 chapter 2 reproduction kusoo aragna homogeneous chromosomes come together waxaa imaanaya homogeneous chromosome in pair oo lamaana subsequently and segregate into the daughter cells independent of each other kabacdi markay imaadeen subsequently segregate kala tagaan into daughter cells independently si madax banaan mid marka the independent assortment to produce a wide variety of different gametes waxa kala maana independent assortment markan ka hadlayno waxay soo deeysaa macnaha gametisyo kala duwan wide variety aad u kala duwan the total number of combination of depends on how many pairs of chromosomes are there in the parent cell inta kala duwanaanshaha imaan karta waxay ku xiran tahay imisa lamaane hidde chromosome ama hidde ayaa waxa loo yaqaano xaadir ku ahaa cellku arag the number of combination is haday do-an noqoto something like that waxaa laga yaabaa number of combination waxaa laga yaabaa inay ku kala duwan yihiin for example waxaana twin where the n is haplord no a number of chromosomes and human this is 2n maxay noqonay marka inta tirada uu laga fiiriyaa waa haplordkii oo waaridka hal qof ahaa oo ku jibaaran n 2n marka 2 waatana ku jibaratay saddex wayda ka imaanaysa which taasoo numerical tira ahaan oo noqon karta inta no wonder brothers never look exactly alike halayaa marka inay dadka isku ekaawayaan sababtoo intaan oo fursada furan oo Chinese inay kala madax banaanaadaan okay waxaan leenahay qodobka labaad ee noo keeni kara waa cross waxa loo yaqaano crossing over in isku talaalo during inta lagu jiro borophase oo wajiga hore aha asaga in the first mitotic division when the homogeneous chromosomes are intimate contact with one another inay xiriir isla soo sameeyaan isku imaadaan macnaha isku soo dhagaan the chromatids marka qaybta dhexe isku hayso waa homogeneous chromosomes break ee kala go'an arichon dib isku biiraan hadana ayagoo meel qaas ah sameysana lagu magacaabo jasm hadaba taas waxa lagu magacaabo crossing over inay macnaha chromosomka isku biiraan oo ay kala ka isweydaarsadaan waxa loo yaqaano chromatidski isweydaarsadaan during crossing over inta lagu jiro the important genetic exchange takes place waxaa dhaca genetic ah hidaha isweydaarsiga waxa ugu muhiimsanaya dhaca in the jasm ayuu ka dhaca hence result in variation taasna waxay keentaa kala duwanaansho tiro badan ay keenaysaa wax kala ma ahan labadan qodob ee gametka quseeya waxaan ka hadlaynaa cause of variation maxay keeni kara cause of variation waxaan qodob koowaad keeni kara waa gamete formation gametka gametka habka u sameysmo wax kala ma laba qodob ka qaadanayna independent assortment oo ah inay dhalaankii kala madax banaan qodobka ugu muhiimsan meesha ka fiirinayna waxa waaye haplon numberkii aabihi ama hooyadii ka imaanayay marka labadaas qodob ay keeni karta qodobkan marka aad iyo aad u badnaa kara baararta cellka inuu kala duwanaado tusaale
male oo female macnaha chromosomekii oo labo oo lagu jibaaray marka tiradan hadda ku jibaarto something tiradan oo kusoo baxayso intaan oo chance oo variation oo kala duwanaanshaha furmi karta marka fursad sida daraadid ma la yaabi kartaa lagu dhahay walaalaha isla dhashay deeg aad u kala duwanaa midaan kalena crossing over waayo in la isku talaalo labadii waayo oo labadii chromosome ay isweydaarsadaan uploadka x iyo y marka isku yimaadaan crossing office chasmo ka dhacdo chasmo markii ka dhacdo ay sameeyay inay macnaha chromatidkii labadaha ay kala qaadaan labada chromosome ee lamaanaha ah daasna waxa ugu wacan meesha ugu badan ee iswadaarsi ka dhalan karo gaar ahaan mid aad u badan qodobka labaad ee sababi karo waxa loo yaqaan variation waxaan leenahay waa la yiraahdaa fertilization bacriminta qaabka ku dhacday the fertilization permit parental chain to be brought together in different combinations. This way the different qualities of the parents can be combined with the offspring. Fertilization kala wax kala ma waa division in dib ugu laabano mitotic meiosis kuwaay in dib loogu laabto halkaas macnaha ee noogash laakiin waa wuxuu ogolaanaa parental chainska wuxuu keeni karaa si wada jir ah different combination kala duwanaansho tira badan taasna waa habka ugu wacan ee qualitiska parentski macnaha caruurtii ay ku kala duwanaan karaan different qualities ay ku noqon karaan caruurtii iyagoo waalidka macnaha ka qaadanaya sifo qodob kale keeni kara waxaa lahaa mutation waxaan ugu imaan doonaa casharka soo caadiya laakiin waa spontaneous chance waa isbedel aan macnaha istaag lahayn oo genetic makeup genetic wuxuu ka sameysnaa ayuu bedelaya disorderna wuu noqon karaa mararka qaar disorderadu u badan yahay abnormality inuu noqdo mararka qaarna marka spontaneous change waa isbedel asaga joogtaa socda oo ka sameysmaayo genetic makeup ka organisms. Other great chance wrote about the mutation will be considered later in chapter. waxyaabo badan oo keeni karo disorderada u badan yihiin gadaan uga hadli doonaa intaas waxaan uga hadalnay wax loo yaqaan maxaa keeni kara variation saddex qodob ku soo qaadnay variation waxa keeni kara inuu gamete formation oo laba aan kala qaadnay independent assessment iyo crossing over fertilization inay keento iyo mutation inay keento duulaad inta oo 1.3 casharkan hore soo baranay waa videoga hore ku jira ama lessonka hore ee reproductionka bilowgiisa ah chromosomes nuguma cusba waxaan leenahay sida usoo barataba chapterka saddexaad meeshaan book 3 oo kala yahay maybe inuu book 3 anagu waxaan ugu dhigmay 11 ka laakiin book soo celcelinaa xogaa qalad mistake waaye laakiin waxaan kusoo baranay chapterka labaad barka qaar waxaan kusoo baratay book saddexaad waa runtiisu marka gadaal u tiriso book neenka kusoo baratay chromosome book neenka ayaa chromosome kusoo baratay sababta this book aan aqrina book afraad waaye gadaal hada u tiriso midka saddexaad macnaha ay noqonayso waxaan leenahay qaabka loo yaqaano chromosomeska saa hore usoo baranaba waxa waaye book nuclear cell waa number of long thread like structure lagu magacaabo chromosome waxaa kusoo qeybinay chromatidka mid kasta kusoo baranay chapter wuxuu leeyahay each chromosome wuxuu ka samaysan laba parallel oo lagu magacaabo chromatid kastana waxaa isku haya structure qaab lagu magacaabo centromere inta sawirkan ugu cad waaye wax kala maahan inta qeexnay horena oo soo qeexnay labadan xabo mid kasta waxa la chromatid ayaa lahaa halka iskaga dhigay centromere lahaa sawirkan dhan oo u jeedino chromosome ayaa la yiraahdaa in a body cell marka xayawaankan jirkiis ka hadlayna si kasta ma noqotay somatic cells oo ka hadlayna somatic cells mid body cells not reproduction ma qaabilsan asaga chromosomes ka occur in pairs lamaane u dhacaan waa division ka loo yaqaano mitosis meiosis each pair lamaana kastana wuxuu leeyahay dhirkiis dabeecad ayuu leeyahay the member of the each pair waxa lagu magacaabo homogeneous chromosome lamaana hidi isku mid ah macnaheedu waxa waa chromosomeska alike appearance isku ogyihiin although the genetic composition may different waxa laga yaabaa waxay ka kooban yihiin inay kala duwan yihiin laakiin genetic ahaan appearance waa isku mid during sexual reproduction inta lagu jiro marka sexual reproduction taranka each parent contributes one of the chromosomes of homogeneous pair wuxuu soo saaraa noolo kasta ama labada organismka taran galmada ama taranka sameynaya labadii lamaanaha mid kamid uu soo deysana along to the length of the chromosome marka serious structure coil lagu gene waxay noqonaya waxyaabaas markay tixmaan waxyaaba tixaan qaab dhismeedka chromosomeska tixaan oo lagu magacaabo gene hide they are too small to be seen even the powerful microscope aad buu yarta ilaa microscope weyn loo isticmaalo ma this genes that determine the characteristics of colored cellka ayaa go'aamiyo ama borogeny ayaa go'aamiyo oo wax loo yaqaan hido noqona
horaan usoo sharaxnay naguma cusba cashirkan laakiin intan waxaan xasuusin ku sameyneynaa chromosomeska habkay u kala duwan yihiin organism magaciisa inta kugu qoran in magaca laba magac loo yaqaano senescence nameka iyo magaca caadiga oo taqaan inta ku qoran number of chromosomeska inta ku qoran inta waxa ku qoran somatic body oo dib loo looto ny waa cell body intana gamete formationka oo reproduction ku dhacay waa macnaha oo kan halfkiisa ay ka noqonaysaa oo kaliya idaa marka soo qaadano oo magaca lagu dhaho office coros konton iyo lix leeyihiin konton iyo lix labada u qeybiso waxaa weeye gameteskiisa waa latisted waa 2n iyo n macnaha wax loo yaqaan kowga oo boss tomoska lahaa 60 u leeyahay 30 ay noqonaysa chromosomeska fruit flyga oo drosovila ugu badan buuga kusoo laalaaba doona 8 afar u noqonaya wax loo yaqaan miiska galeyda zimisa lahaa iyadana 20 y 10 ay noqonaysaa oo baa wheatka oo tricam valga nooca loo yaqaano 14 noqonaya tobacco oo nicotina takapuni tabacone kani adena la 12 ila 6 this waxaan wax kale ma xasuusin bil aadanka waa 46 ya 40 iyo 6 inta waxay noqon inta 46 noqonaysaa halkan waxay noqon 23 ay noqonaysaa chapterkaas oo ka soo hadalna bilaawi qaabkaas kale oo ka soo hadal waxaan loo yaqaan okay wax kale ma inta ku sharaxayno all the cells include gametes parent or ova in sperm ay noqdaan oo ka imaanaya male iyo ova oo noqdaan wax ka contain chromosomes count of the markay la tiriyo chromosomes kaas waxa loo yaqaano divine constant number of chromosomes ku qeexi karna in each cell for the species for animal or plants animal halaha plants noqoso for saada soo qaadano human each somatic cell marka ka hadlayno body cell wuxuu ka kooban yahay 46 chromosome halka gametes uu ka kooban yahay 23 chromosome on fertilization bacriminta marka inta ka dhacda the number 46 a diplo number ku magacaana and restored into zygote ku waayo macna oo habeen lagu sameeyo other animalska in the context taasilidkeeda lahan karaan sida chromosomes ku waa tabarka ka soo sheegay chromosomes are present in the nucleus all the time markaas the body ku jiraan but they only appear and become visible when they viewed under a microscope si kasta markuu arki karo waxa la arki karaa oo kaliya soo muuqan karaan noqon karaan mar la arki karo iyadoo la fiirinayo weynayso marka cell division ka dhacay mitosis or meiosis marka dhacays labadooda hadaa rabto inaad fahanto raadi videoga reproduction part 1 chapterka chromosomes exhibit a certain characteristics behavior dabeecado qaar ah ayay wataan ama ay macnaha xiraanba oo ay mas'uuliyad ka yihiin behavior during the stages of cell division inta lagu jiro xaaladda cell qaybsanka wax loo yaqaan stageskaas oo cell divisionka waa qaabka u soo barnay interphase prophase metaphase anaphase iyo telophase interphase oo tabaabasho ah prophase oo wajh hore metaphase wajh dhex ah anaphase oo wajh kala guur ah iyo macnaha wajh kala tag anaphase waxaan dhahay وجه kala guur waa ka dambana waxa way waji gabagaba Allah taala fiiskasa qaabkaas ku soo baran in this one waxaan ku baro doonaa haduu ilaahay idmo chainka and this genes and DNA deoxyribonucleic acid oo aan naqaan iyo gene brief history aan ka dhibi doonaa haduu ilaahay idmo meelaha ugu fiican ee biology badana aad iyo aad mowduuc looga hadli doono ayay noqonaysaa in kasabti ahaan marka waxaan uga hadli doonaa fiidiyoyaal qaas inaan u soo okay it has been conclusively established that the chromosomes contain the hereditary materials or factors that are transmitted from the parent to offspring. These factors are what are known as genes. waxaan isla garanay isla gabagabadii inay jiraan waxyaabo aas oo ah chromosomeski oo ka kooban hidisidayaashii ama isirkaasoo gudbiya waaridka sifa ka gudbiya dhalaanka noo gudbiya isirkaas ama factorkaas ama qodobkaas waxaan ku magacaabi karnaa waxa loo yaqaan genes experimentation ama tijaabo waxay ku tusinaysaa the genes occupy definite position of the chromosomes in the chain logs lado waxay sameynaysaa tijaabada la sameynayo oo sida tan kuwa xadbada chain locks waxa loo yaqaan inay ku tusiso gene-ka oo positionkiisa oo chromosomes ka yaalo oo qeexan
in a further pin show the gene chemical nature hadaba genka waa walax chemical camal ah in 1944 Oswald Avery ninka la dhahay establish ayaa wuxuu sameeyay the gene was the form of the nucleic acid molecule wuxuu dhahay gene wuxuu ka kooban yahay nucleic acid molecule wax lagu magacaabo oo buuda ku jira laguna magacaabo deoxyribonucleic acid DNA. The chemical nature of the molecules was not fully understood until 1953. waxyaaba chemicalka DNA ga ku magacaabay ninka soo magacaab bixishay 1944 oo sheegay ilaa 1953 laga soo gaarayo si dhameystir loo fahmin when two biologists Frank and James Watson working waa Ingiriis u dhasheen oo maleena video gooniyo looga hadlayo jiro insha Allah. waxaan leenahay Watson worked out of the structure and they found that the DNA is a nucleic complex molecule composed of 3 different components, and there are 5 carbon sugar, a phosphate molecule, a nitrogen base, of which are the 4 types of adenine, guanine, thymine, and cytosine. waxaana labada nin waxay soo saareen ee lagu magacaabo Francis iyo James inay ka shaqeeyeen structure-ka waxayna heleen DNA-ga inay ka kooban complex molecules waxyaabo ka kan oo isku saaran composite of 3 different components saddex waxyaabo inay ka kooban tahay sidaasalka 5 carbon oo base u ah phosphate molecule maadada lahaay iyo nitrogenous base waa 5 carbon sidee rabaan isku dhigi karaan laakiin waxyaabo badan isqabsan kara laakiin asal waxay ka kooban tahay 5 carbon phosphate molecule isku dhagan iyo nitrogenous base oo nitrogenous base ka afar loo kala qaadayo waxay kamid yihiin amino acid adenine guanine thymine iyo cytosine oo mid kasta sifooyinkan wax kasta oo DNA isku dhigo waxa soo laalaaba doona intaan haduu lahayd inaan safiican the combination of 3 components above saddexdan kor ugu soo sheegay 5 carbon iyo phosphate ka iyo nitrogenous base ka form nucleotide waxa la sameeyaan Watson and Crick suggested that the DNA structure consists of several nucleotides. Nucleotide maadaama afartaas ay ka samaysan waxay soo sheegeen ayay dhaheen waxay ka kooban tahay DNA-ga several nucleotides or joined together to form long chain that are called DNA history. waxay dhaheen maadaama shantan afar saddexdan waxyaabo ay sheegeen base ay u tahay saddexdaas waxyaabood oo isku tagayeen ay sameynayaan waxa loo yaqaan nucleotide labadina waxay dhaheen nucleotides tira badan oo isku tagay ayaa waxay sameeyeen DNA strand waa kana meel kasta ka fiiri in this silsilada waxa ku arkaysaa saddexdii eray kana saddexdii eray distant trade another trade double helix ka lagu magacaabaan arkeen. The 2 parallel DNA threads labadan lamaane ee isgarab ordaya twist in one another forming double helix midba midda kale ay ku laalaabantaa si u sameeyaan double helix. It also observed that the quantities of adenine and thymine are always equal where those of the cytosine and guanine are not also equal. waxay fiirinaysaa tira ahaan ama cadad ahaan quantitieska labada maade A e T adenine iyo thymine waa kana inta marka ka tirso labadooda inay isku mid yihiin so laakiin wax kala duwanaa doona cytosine iyo guanine alhamdulillah inaysan isku mid noqon alhamdulillah yaadakum Allah. Okay, laakiin si aysan isku mid noqon doon labadaas this suggests that adenine always combine with thymine si isku dhagayaan professor markaste waxa isku dhagayo israadsanaya eeda iyo tiida well cytosine combines with guanine so forming the double helix ay sameeyaan structure of DNA oo kan lagu magacaabo mid kasta isku soo horjeeda waxaad fiirsaa in labadaas isku dhagaan. The DNA is therefore hadaba DNA ga si kastaba ha noqotay la twist lander waa jaranjaro la laalaabay camal with a nitrogen base forming these types and rings si warwareeg nitrogenkaas base-ka ayaa nitrogen sameeyana oo nitrogen sameeyana si warwareeg camal ah sida sawirka kaaga cad the double helix structure of the DNA molecule sawirka ku cad. Okay, a short section of the DNA molecule with 2 strands untwisted kuwa aan macnaha
isgashaneen ama isku laalaameen show the position of the base kuwaas oo tusina base-ka sugarka iyo phosphate molecules ayagana sawirka hoose ka fiiri ee free bond figure-ka loo yaqaan ayagoo isku dhageen waa kana phosphate-ka markasta cirifyadu yaala labada cirif this are sugar intana waa kana cadaarinta miinay ku dhageysaa saytosin guanine ku dhageysaa saasay u soconaysaa ayadoo tiro badan saas qaabkaas ku dhigay in generally we can say that the chain section of DNA chromosome made up of chains ayay sameynaysaa silsilad based along to the DNA strand silsiladaasay sameynaysaa oo ku taxan waxa loo yaqaano DNA maadaama DNA aan aragnay waxaan soo dul mari doonaa insha Allah goonin inaan u sharaxno isku dayeynaa book si kooban ugu sharaxaya si dhameystiran RNA doorka RNA DNA RNA ayadoo noo soo socotay maxaa waay muhiimada uu leeyahay ama doorka uu nolosha ku leeyahay DNA muhiim waay sababtoo ah stores genetic information coded form wuxuu kaydiyaa dhammaan macnaha wixii ku quseeyaba dhaxaltooyo ama dhalaan enables transfer to the genetic information and change to the cell through replication wuxuu suurtageliyaa inuu genetic information ka gudbiyo ayadoo wax aan isbedelayn dooda cellka translates the genetic information wuxuu macnaha translate ku sameeyo turjuma genetic waxyaabo waxaan baarsan yihiin into the characteristics of organisms through protein synthesis isagoo sii marayo inuu protein sameeyo waxa loo yaqaan protein synthesis uu sii marayo qodob la dhahayo ayuu sii maraya oo nidaamkaas uu sii qaado okay mid kasta aan fiirino saddexda qodob ee loo sheegay ayaa qodob kasta iyo sida uga qayb qaada qodobkooda waxa waaye genetic coding sameeyo qodobka labaad waxa waaye replication qodobka labaad noo soo qaadid waxaa leen DNA replication soo u dhaca hereditary materials waxyaabaha la kala dhaxlo must be passed the next generation chalka labaad waa inay u gudbaan waa qasab so the ability DNA replicate itself isku koobiyeyso clearly explains how inherited characteristics are passed on si u gudubto ay noo sharaxaysaa awoodda DNA-ga ay macnaha replicate isku sameyso dib habeen isku sameyso iyadoo noo sharaxaysa habka uu gudbo the DNA double helix consists of two long separate straight chains ayay ka kooban yihiin oo isku garab ordahay so the base pair kaasoo lamaanay bis when the molecule is due to the replicate the double helix unwind and the two strands unzip themselves waxaa la sameynaya waxa loo yaqaano inay kuwii isku laalaabnaa oo ahaa wax loo yaqaano labadii lamaane gorobada DNA-ga base-ka ahaa waxay kala fuqayaan replicate-ka waxay unwind sameeyaan kuwaas loo sanadana strands-ka zip isku dhigeen macna this made a possible taas suurtagal waxay ka dhigaysaa the presence of the weak hydrogen bond taas waxa suurtagelinaya dabar daciif oo hydrogen ah the link the base of two strands ku xiran ancibin markuu dhaxo si kastaba ha noqotee natiijada waxay dhalanaysaa inuu breaking on the hydrogen bond inuu jabo and setting each strand free from other midba kale xor ka noqdo after ancibin marka lagu sameeyo the formation of DNA strands maxay sameynaysaa that is a base sequence is copied out into the new DNA structure using the parent of DNA as a template and thus the parent of DNA molecule said to be have replicated asaga isku biin wax kala maahan inuu macnaha kribato this one uu sameeyay one markuu sameeyay way kala badanay ancibin kala fuqitaanka wuxuu keenayaa in macnaha sequence iskoobiyeyso DNA-ga qaab dhismeedkeeda iskoobiyeyso ka bacdina template cusub la soo baxdo template cusubna oo macnaha kulamaanto ama strand cusub la sameeyo nafsadeed the replication makes possible the pass DNA molecule together with an exact genetic formation to the daughter cells during cell division of organism in figure 3.6 oo noo sharaxayo inay macnaha gudbiso inta lagu jiro cell division-ki information-ka inay gudbiso maadaama uu genkii uu isbedelayo heredity qaabka ku haysatay ama isku haysatay as the cell prepares the division during interface markuu isku diyaarinayo diyaarintii oo macnaha wajiga hore genetic material DNA-ga replicates means more making more wax badan la sameeyo waa la koobi double helix ayaa la sameeyo so that sufficient of DNA is made up of available for each the cell maadaama wax kala qaybsan rabaan si lamaanaha kala qaybsama midba mid gooni u hesho wax kala maan
haddaan soo qaadana DNA replication waa in la koobiyeeyaa la badiyaa keligiisana maaha waxay ahayd interface xubnaha dhan lagu mitochondria la sameynaa la badinaa ribosomiska waxaas oo dhan la sameynaa doorka uu ku leeyahay proteinka inuu sameeyo DNA waxaan leenahay muhiimada DNA deoxyribonucleic acid waaye waxay doorka ku leedahay si base ah waxay mas'uuliyad ka tahay proteinka samaysiga cellka taasna waxaa ugu wacaan muhiimada significance ku leedahay since protein control nearby every aspect of life of cell kasta nolosha waxaa controlan protein that's why ay macnaha mas'uuliyad goonayso structure protein molecules determine waxay go'aarinaysaa the structure of cell structure protein leeyahay waxay go'aaminaysaa structure cell ku qaadana therefore the organism well the functional protein molecules such enzymeska hormoneska ayaa protein ahaan noqon kare control the function of the cellka shaqadiisa ayay maamulaan oo control the sequence of bases along the DNA strands alphabetic or code this pattern of sequence of amino acid waxay noo sameynaysaa in waxaan sabab u noqoto baseka sequencega DNA oo sameynayo gaar ahaan alphabetka marka kaadeen ama code qaabka isku dhagayaan xarfahan soo sheegnay amino acid sequencega tixda amino acid كيف أنت أمينو أسيد كتحدث sorry علينا the sequencing مركا أمينو أسيد every set of 3 bases كأن صار along the DNA اللي had responsible for breaking into the position of particular amino acid of polypeptide chain waxay sameynaysaa inay silsilad badan iskugu dhagaan oo polypeptide ah wax loo yaqaan amino acid ki booska aan soo sheegnay waxa hadaba meeshaas triplet saddex xaga amal isku galayaan waxaan noqonaa coding I said to be called adena saddexda xaraf marka isku dhagaan number particular amino acid of protein molecule example the saga DNA code oo saddex adenine isku dhagaan waa coding for amino acid phenylalanine ayay sameynaysaa TT marka isku dhagaan lysine ayay sameynaysaa CA marka isku dhagaan valine ayay sameynaysaa CTA marka isku dhagaan aspartic acid ayay sameynaysaa waxaan u fiirinaynaa markaste oo u naqaana la xifdinaya amino acid ki qaabka isku dhagaan saddex afartii waxyaabood base-ka marka isku dhagaan mid kasta magac amino acid la bixin many others contains kuwalaha ay ku kala duwanaan karaan amino acid protein synthesis takes place waxay ka dhacdaa ribosomeska laga helo cytoplasm sinis hadaba the DNA moleculeska waxay confirm gareynayaan cell nucleuska ay ku buuxaan there has to be means of communicating the DNA information of the ribos where the protein synthesis occurs meesha proteinka laga sameynayo DNA ayaa macnaha mas'uuliyad ka saaran tahay that's why factorkaas noo sheegay the cell has got a special molecule of the mediates between the DNA and the nucleus and the cytoplasm cellku wuxuu lahaan karaa nucleus ama molecules qaas ah oo dhexdhexaadinaya DNA-gi nucleuska iyo cytoplasm the molecules also nucleic acid molecule dhehna ama waxaan u naqaanaa ribonucleic acid RNA ayaan dhahayn since this role ay muhiimadeedu tahay inay qaato genetic information from DNA ka qaato to the cell of proteinka synthesis ee geedo into cytoplasm refer to as waxaan ku sheegnaa midaas wax qaadayso message dhambaarsiday informed from the DNA strands markaasna u sameeyso the information of messenger DNA dhambaarsidahan ama fariinsidaha messengerka RNA oo RNA waxaan ka soo gaabinaa ribonucleic acid as appropriate section of the DNA waa qayb ku habboon straight surface as a template waxay u taagan tahay template gooni ama macnaha the double helix of DNA unzip ayay sameynaysaa free nucleotides align ka bacda nucleotides ayaa dib isku habeenayo xorta ah ayaga qaaskooda ayaga opposite template sameysanayo adsi iska soo horjeed the base of sequence of templates copied into the new strand ayaa lagu koobiyay which can be becomes RNA strand DNA strand baranayna RNA strand noqonay in this the RNA strand the thymine T is replaced by base of uracil U ayaa T lagu bedelaa oo ku kala duwan difference inta kala iskala mid ah and the transfer of DNA marka gudbaysan sequence of messenger DNA leaves the nucleus ay ka tagaa the full interaction from the DNA asoo ka soo tagaayo from the kind of protein no protein kamid can be synthesized by the cell oo cell sameeyay sida figure-ka nooga cadba halka DNA duplicate oo template sameysan inta loo yaqaan messenger RNA template halkan ku sameysmaysa halkan waa messenger-ka oo isku xiray labadooda inuu isku xiro
Okay, the structure of the inform of the base triplet condom midka saddexda xaraf hadday isku dhigaan waayo which are then practically used the sample of amino acids waxay sameynaysaa suurtagalnimadaas inay macnaha mas-uul ka noqoto amino acidka qaabka u sameysmaayo polypeptide chain iyadoo ka hadleen informationka of messenger DNA translates marka turjumaysa ribosomes as used assembly of amino acid into the specific protein molecules taasna mas-uuliyadda qaadayo amino acid protein qaas ah the protein marka molecules determine waxay go-aaminayaan in hereditary characteristics in organisms dhalaankan waxyaabaha oo kala dhaxlaayo ayay markaas ayadana go-aan ka gaaraysa. Okay, cashirka DNA ga anada cashir kalaan kusoo duubi doona oo gooni DNA muhiim gooni noo leedahay insha Allah marka biology and science ka joogno halka kusoo gabagabeena cashirkaas cashirka kan xigo cashirka ugu muhiimsanaa waana wax loo yaqaano inaan sameyno crossing over iyo fast heredity aan dhaxgalno anako ka bilaabayno Mendelius George Mendel experiment yada uu sameeyay Lewiskiisi waxa sharaxan ka bacdan crossing over gudbina duu ilaahay idmo halka kusoo gabagabeena waxaan ka soo bilaabnay 67 waxaan ku geynay 67 iyo wax loo yaqaano labo waa gaabinayna cashirka insha Allah waana jarjaraynayo kan waxaan ka soo dhigaynaa casharo yar oo seesta oo macnaha duu lahayd mudib xitay edition editing in dib ugu sameeyo u baahan tahay buugga qaabka ugu sameeysan yahay aad buu isku dhaxdaadsan yahay ustaad Mahad Salaad Maxamuud bar Amiris oo ana leh Soomaaliya meel kasta joogtay si kasta ila socotiin barnaamij waarta casharada si share garay halmaami subscribe saa u dhaada cashar kasta saad macnaha u soo hesho xiriir wixii aad u lahayd commentiga ku soo qor wixii casharada u baahan tahay daraasada ama comment ah ama aad fikrad iyo tusaale ah heeso haduu lahayd inuu caafimaad tira badan ayaa la leeyahay. Congratulations dhamaantiin sida waana cashirka oo la socotiin guul waarta asxaabtiina la sii share garay haduu ilaahay mar dhow soo wadnaa qof kasta u baahan online inuu casharada ku barto haduu ilaahay inuu qayb online oo gooni oo cashirkii lala soconayo imtixaan laga qaadayo waxyaabahaas inaan u sameeyno insha Allah guud jirna waxa kale oo insha Allah programkeena ku guda jira haduu ilaahay idmo inaan macnaha macallimiin takhasus ah oo tiro badan raadino ku soo xirnay page-keena macallin kastana soo dhameynayna oo bar ama baro ayaa channelka halku dhigo ah waxaan kale oo sameey doonaa haduu ilaahay idmo qofkii macallin u baahan inaan u keenino macallin education oo takhasus ah oo badge degree ugu yaraan ah hadana master ku keeno badge degree aan ku keenino insha Allah maadada arabta takhasus ah macallimiin badan oo group aan sameey doono insha Allah hadana sameeysan ana wili soo shaacin dhamaan marka waxaan leeyahay meel kasta si kasta ila socotiin guul waarta amaana Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.